السلام عليكم soo dhawaada magacaygu waa Seenab shaqadan insha Allah taala soo dhawaada asxaabay waxaan rabaa inaan maaragtay videogan kugu soo gudbiyo maxaa la yiraahdaa akhyaar ugu xirna waxa jirta maaragtay soo weydiiyay xaaladda ka warramaysa tihiin reerkay hadaa tihiin maxaa la yiraahdaa maxaa in ka cusub wax la soo sheegay maxaa ka jira maxaa la dhahaayay intii warkii been iyo run iyo wax walba waa la isku dhex darayaa marka insha Allah taala waxaan rabnaa inaan horta kood hore marka ugu horeyso aan alla tala saarno marka uu labaad aan maxaa la yiraahdaa qof walba oo maaragtay islaama waxa laga rabaa inuu maaragtay markuu uu baxaayo banaanka aadayo kale uu sameysto maxaa la yiraahdaa ducaa oo akhristo adkaar akhristo ilaahay ka magan galo wax walba oo dhiba waxaan ma u jeedaa adduunka hal mar sida loo joogo ayaa wadamada waxa ku dhacdo hadba wadamada kamid ayaa waxa ka soo cusboonaato arin aan hore u jirin ayaa ka soo ifbaxdo marka Soomaaliya kala hadda ayaa hor waa ogeedan kufsi ilaa hadda wax lee socdo hadda ayaantan anaga wax ka cusub magaalooyinkeena waxa waaye maxaa la yiraahdaa in hebel la kacay qof la waftuubta saan waaye aniga inaan ka hadlo waxa soo dhamarmin laakiin xalay markii ugu dambeysay gabar youtuberada oo maasha Allah aad ugu xiranahay oo weyn oo maxaa la yiraahdaa maama la dhaho hooyo macaan ayaa waxa ku dhacday maxaa la yiraahdaa in maaragtay laba jeer ay ka badbaad afduub marka taas ayaa uu kaliftay inaan soo hadlo aniga maxaa la yiraahdaa waxaa jirto hooyo macaan in maxaa la yiraahdaa ayadoo oo maxaa la yiraahdaa mar ka soo baxday shaqadeeda oo gurigeed u socoto in maxaa la yiraahdaa looga qabtay in maxaa la yiraahdaa afka looga qamarar laga saaray oo maaragtay ay soxday dhulka ku dhacday kadibna ayadoo oo maaragtay markii ugu horeysay niman kala dagaalamaysay ay qaylisay oo nin shaqaalaheeda kamid ah oo carab ah oo meesha ku soo baxay oo nimankii ka ceeriyay oo ka celiyay saasay tay gurigeeda irdi istaagnay albaabka ay garaacisay oo gurigeeda irdeeda kula dhacday maxaa la yiraahdaa aniga ahaanteeda guriga hooyo macaan maxaa la yiraahdaa waan garanayaa oo hadda ka hor ayaan maxaa la yiraahdaa kuwa kan galaas maray bilaabaysay ayaan mar tagay marka xaafadeeda waan aqaanay ma og hadda inay ka guurtay laakiin adigu almost sanad waa ka soo wareegataan isleeyahay laakiin waxaa jirto maxaa la yiraahdaa in gabadha ay ka badbaaday taas oo adi daawada cabaar kadib ay ka soo kacdo guriga lagu xareeyo adigu ay soo maaragtay meerkeeda caadi noqday laakiin jug ka gaartay wajiga iyo indhaha ay ka barartay maxaa la yiraahdaa qof weyn oo ganacsataan ay tahay warkiina war cad oo yahay magaalada dhan la isla dhaxmarayo gabdhaha yaryar waaweyn wax dhexe wax laafina aan lahayn marka insha Allah taala asxaabe insha Allah taala bal noo soo duceeyana kan insha Allah dadka macna darada banaanka u socdo oo iska soconayo oo wax maaragtay xilliga oo dadka ay guryahooda ku jiraan oo kala soconaa waxaan dhihi lahay ha is ilaaliyaan oo ha iska joogaan xaafadahooda insha Allah taala waxa roon maxaa la yiraahdaa in oo maxaa la yiraahdaa ay is ilaaliyaan videoga dhexdiisa hadaa ka aragtiin dad muuqaalo video ku jiro video maxaa la yiraahdaa waxa muuqaalkan mar aan maxaa la yiraahdaa u baxnay Nairobi banaankeeda oo Mombasa jidkeeda waa wadadan marka insha Allah wiilal aad duubayeen insha Allah no problem adinku wajhi ma arkaysiin laakiin waxa arkaysiin gacmo iyo lugo badanaa wiilashaas maaragtay maasha Allah gaariga noo sida hadeerta qofkaas oo kale marka insha Allah taala si kale ha u fikirnina marka waxa jirto in maxaa la yiraahdaa gabadh ay isku badbaado markii koobaad markii labaadna waxa ku dhacday hadana sidoo kaleeto in maxaa la yiraahdaa ay baabuur iska raacday taxi ayada iyo ninkii carabka ahaa hadana adigu laba afar bar gudeed waxaas inay ku dhaceen ninkii carabka u shaqeynaa iyada inay hadana gaari qaateen maxaa la yiraahdaa ku joogan magaalada maxaa la yiraahdaa gees maaragtay kamid ah in ninkii taksiilaha ahaa oo isku dayay inuu maxaa la yiraahdaa uu kula kaco afduub kale hadana ay shakigoodii iyo ninkii intay ku fahmeen meel shidaal intuu istaajiyay asoo telefoonka hadlaantay arkeen kaalin shidaal macnaha meel shidaal oo baabuurta looga shubto ayuu maxaa la yiraahdaa wuxuu sameeyay telefoon asoo ku hadlaantay arkeen inay shakiyeen kadibna ay ku dhaheen waa adab daran tahay wariyaa waa arkeen inaad telefoonka hadlaysay hadda waa inaad nagu celisaa meeshaan naga keentay sidaasna ay ku badbaadeen marka waxaa jirta asaabay xaaladdu waxaan ku dhahay ma aqaano waa xoogay waa qasan tahay ilaahay ayaa maaragtay og waxaan meel u socdaan maxaa la yiraahdaa insha Allah taala waxaan rajeynaynaa isbuucii soo socda wax badan isbedeli doonaan maxaa la yiraahdaa ilaahayna noo soo bari insha Allah taala ana kana isku dubnaano ana waxaan dhihi lahaa insha Allah taala ilmaha yararka oo dugsiyada aado ama iskoolada gacanta laga qabto hala ogaado dadka isli ku nool kala badan waxay sameeyaan
naagaha shaqaalada ay ilmaha u dhiibaan waxay ku dhahaan or ilmaha dugsiga geey iskoolka geey sii wad soo wad marka waxaan dhihi lahaa hooyooyinka midii socon karto oo maxaa la yiraahdaa lugaheeda ilaahay caafimaad u siiye ha samayso inay ayada ilmaheeda gacanta ka qabsato gabdhaha waaweyn oo kale oo maxaa la yiraahdaa xoogay kaligood bixi karaan ay kalabtirkooda haddii qof dhalinyaro guriga joogo ilaa iskoolka tegaysa in la ogaado maxaa la yiraahdaa marka hadhowtadii inta calaacal lahayd oo maxaa la yiraahdaa dhihi lahayd waa inkastoo hadda ilmaha kaligood ay sheekada ku koobnay qof weyn maamada sadartan maxaa la yiraahdaa waa la ogaya inaan la afduubi karin ama soo bax la dhihi karin waa la xoogaa suna afka lagaa saara waad suuxaysaa maaho marka insha Allah tacaala ilaahay na xifdiyo midda kale maxaa la yiraahdaa markaad meel cidlaa maraysid waa inaad is ogaataa oo tiraahdaa maxaa la yiraahdaa dadkan geesaha socdo aad ogaataa waxay yihiin qofka markuu kugu soo socdo wajigiisa iska sii fiiri maxaa la yiraahdaa baabuur tagsida iska qaadanaysiin iska dhaafa tagsi la yaqaano hala qaato taargada ha laga qorto taleefankiisa hala qorto maxaa la yiraahdaa qof ha taqaanina iska raac hal qof kaligiis inuu socdana waaba maaragtay halis waay hadda maxaa la yiraahdaa insha Allah tacaala waxaan ka rajeynayaa inaad seef aatiin idinkoo dhan dadkan midda kale dadaa waxay leeyihiin soomaalida unbay ku kooban tahay hadda sheekada soomaalida kaliya kuma koobna saan arkayna wararka newska dadka maaragtay wadanka u dhashay xataa way ku jiraan ilmo badan waxaan arkaya asxaabay maxaa la yiraahdaa wadanka u dhashay oo sidaas ay kara la waayay ama la aftubtay oo haddana la helay ama qaarba weli la weysay marka insha Allah tacaala waxaa sameynaysiin insha Allah tacaala ha la isku dadaalo ilaahay hana xifdiyo insha Allah tacaala wixii dhib Allah naga haayo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu maaragtay naga qabto dhibaatadaas insha Allah wax gaaban noqoto waxa waaye horta waa la dhimanayaa laakiin si la dhimo dhib waaye maxaa la yiraahdaa oo maaragtay qofka markii oo inta xanuunsado ama maxaa la yiraahdaa wax kale ku dhacaan oo geeriyoodo waa laga samraa laakiin qof nool oo la waayay si looga samro ma garanayo waxaa kaloo jirto maxaa la yiraahdaa in maxaa la yiraahdaa qofkaagi ama laga soo duubo asagoo rafaadsan oo lagu dhaho waa kaas qofkaagi anaka haysana camal waxaasoo kale wax naxdin la waa sidii gabadhii ayaan horeeto dadkana waxaa gabadha videoga saas u wareejina waxaan dhihi lahaa walaayaalo dadka waaliha kusii ridinina ilaahay ka cabsada at least haddaa gabadha wejigeeda ud qariya oo maxaa la yiraahdaa ciddii dhashay iyo familkeeda markay arkaan aaday uga naxaayaan war mar hore soo dhamaaday camal haddii maanta dhan gabadha wejigeeda meel walba la dhigo oo lagu soo celiyo oo calaacal ka dhaco hala is ogeysiiyo oo hala isku sheego laakiin gabadha maxaa la yiraahdaa family ay leedahay marka gabadha dhibka wejiga uga dhacay oo saas meel walba meeshaad furtid bay kaaga soo horeyso waxaan dhihi lahaa sawirkeeda saas dhan ha usoo qaadanina haddii lacal aad soo qaadanaysiin wejiga u daboola xataa ina wejigeeda la qariyo oo dhibka ku dhacay si macnaha dadka wax xanuunsana ku jiro dad waxaa iskaga jira maaragtay hooyooyin uraa ku jiro ilmo yaryaraa ku jiro marka xoogaa maaragtay hala sameeyo yaan maaragtay dadkii lagu maaragtay naxadinta iyo yaan maaragtay lagu badin insha Allah tacaala waxaan dhibkan dhacayana hadda wax ilaahay qoro waayo waxaan leeyahay insha Allah tacaala asxaabay aan isku soo duceyno insha Allah tacaala video intaan kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh